kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada war wixii dalka iyo deegaanada Soomaalidu ay degtay iyo guud ahaan caalamkan idinka haynay warka waxa idin la socodsiinaya anigu Axmed Khalid Faraxa halkaad warkan kala socotaan waa xarunta guud ee Real TV ku leeyahay magaalada Hargeysa qodobada aad warka ku maqli doontaan kuwooda ugu doorka roona waxa kamid ah maxkamadda gobolka Maroodijeex ayaa dib xorriyadooda ugu soo celisay qaar kamid ah dhalinyarada darbijiif oo ay hore u xukuntay maxkamadda gobolka Maroodijeex haddaba qareenada dhalinyaradaasi u doodayay ayaa sheegay inay sharciga la tiigsan doonaan mas'uuliyiinta sarsare ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha qoyska golaha wasiirada Somaliland ayaa maanta xeerar ay ka doodeen ay ansixiyeen waxaana ka hadlay afhayeenka madaxtooyada Somaliland oo ka warbixiyay waxyaabihii ay ansixiyeen afar qof ayaa ku dhintay 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa daafuray qorshaha horumarinta qaran ee sagaalaad ee magaalada Muqdisho magaalada Laascaanood ee gobolka Sool oo kamida magaalooyinka taariikhda faca weyn leh ayaa sidoo kale waxa ka jira xaalado kala duwan oo ku gadama bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood warbixin ayaan idinka haynaa daawadayaal kuwaasi waxay hayeen qodobadii warka ugu doorka roona ah imikii haatan ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan